ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa bilihii Agost iyo September waxaa ka dhoofay xoolo tiradoodu ay dhan tahay 180 neef oo isugu jira geel, lo iyo ari. wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland Maxamed Cismaan Cabdi ayaa VOA u sheegay in xoolahaasi ay u dhoofeen wadamada Khaliijka Carabta. marxalado kala duwan ayay soo martay. dekedu waxay u shaqaynaysaa si fuul ah. labadii bilood oo ugu dhameysay dhoofka xooluhu inuu kor u kacay runtii labadii bilood ugu dhameeyay waxa dhoofay 180 neef baa dhoofay oo isugu jira lo, geel iyo ari. marka halkaas waxa ka garanaysaa kamiyad weyn inay tahay horumarna in la gaaray aad iyo aad baa runtii dhoofka xooluhu wax isu bedelay labada bilood ugu dhameysana waxa dhoofay cadadka inta leeg baa dhoof oo ay ka mid yihiin Imaaraadka iyo Sacuudigu. sidoo kale waxa iminka dekeda magaalada Boosaaso ku xiran maraakiib iyo doonyo sida shixnado kala gedisan oo ay dejintoodu iminka socoto 24 saac waa shaqeysaa, 3 shift baa shaqeeya, 24 saac waa shaqeeyaan. maraakiib kasta markab kastana waa ku soo xirtaa xajmi kasta uu leeyahay maraakiibtoo dhan waa ku soo xirataa. hadda waxa xiran markabkii containerka xiran African Som ayaa xiran oo dejinaya containeradii. ganacsatada ayaa ka cabanaya in mararka qaarkood ay salka dhigtaan doonyaha sida xamuulka culus. wasiirka oo aan wax ka weydiiyay caqabadaas ayaa sheegay in ay jirto baahi loo qabo xafaarad lagu sameeyo ciidda soo gashay gudaha dekeda iminkana ay keeni doonaan wax caqabada oo muuqda oo hadda shaqadii is hortaagay ma jiraan, laakiin baahi baa jirta aan la akiri karin in la rabo in ay xafaarad u baahan tahay. taasna waxa weeye runtii gacanta ayaa lagu hayaa. waxaan rajaynaynaa si degdeg ah sida ugu dhaqsaha badan in xafaaradii loo helo dekadii la xafaarad loo sameeyo. waxaana runtii ka ballan qaadaynaa una sheegaynaa ganacsatada reer Puntland iyo gebi ahaan dadka Soomaaliyeed in xafaaradii waqti dhow ay imanayso la shaqayn doono. dekeda Boosaaso waxa ay cirifka ku haysaa badda gacanka cadmeed, waana dekeda ugu dhow suuqyada wadamada Khaliijka Carabta oo ay Soomaalidu xoolaheeda u iibgeyso. shirkadda P&O oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa Oktoobar 2017 maamulka Puntland waxa uu heshiis kula galay in muddo 2 sano ah ay ku balaariso dekeda Boosaaso 30 sanana ay maamusho. hase ahaatee P&O ayaan weli bilaabin dhismaha dekeda Boosaaso. wasiirka aan wax ka weydiiyay sababta hakisay heshiiskaas ayaan faahfaahin ka bixin. waxaase uu sheegay in dhawaan ay wafti Puntland u diri doonto dalka Imaaraadka Carabta.